waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah Xasan Sheikh iyo Xamse Cabdi Bare oo fariin u direen shacabka Soomaaliyeed xilli maanta loo dabaaldegayo munaasabada Ciidul Adha xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed oo ka dartay xildhibaano ku gacan saaray amar ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee maamulkaasi iyo Al-Shabaab oo si kulul uga jawaabeen hadalka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka Hubaal News fadlan daawada dad ku cusubtahay janalkan ku soo biro kamid noqo saaxiibada ee wararka joogtada ee aan halkan ku baahinaa aragtidiina halka oo soo reebo muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina laagtiinana waa inoo dhiirigelin aadna ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Bare ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada Ciid Carafo iyagoona si gaar ah ugu mahadceliyay ciidamada qaranka madaxweynaha ayaa la uga baryay xujayada Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka inuu aqbalo acmaasha suuban isagoona ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay badiyaan maalmaha barakeysan ducada iyo alla bariga ku aadan horumarka dalka waa sida lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Xasan Sheikh ayaa muujiyay sida uu uga murugaysan yahay xaaladda nololeed oo ay la tacaalayaan kumanaanka qoys kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalkeena wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay farxadda ciidda la qaybsadaan dadka dhibaataysan isagoona dadka Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan kan xiga ay ku gaaraan horumar barwaaqo amni iyo xasilooni wuxuuna kula dardaarmay inay gacmaha isqabsadaan qalbiyadana isku furaan dhankiisa ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Bare ayaa ciidamada qaranka ka codsaday inay maalmaha ciidda si laba jibaaraan dadaalkooda si nabadgelyo ay ugu ciidaan dadweynaha Soomaaliyeed sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyay dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda tabaaleysan ugu gargaaray munaasabada ciidda awgeed isagoona codsaday in la gargaaro dadkaasi tabaaleysan waxaan munaasabada Ciidul Adha awgeed ugu hambalyeynaya guud ahaan ummadda Islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunka kaga sugan yihiin ayuu yiri ra'iisul wasaaraha ayaana intaas ku sii daray waxaan eebba ka baryayaa in uu dhammaanteena inaga aqbalo acmaasha wanaagsan ee aan gudanay rabbina acmaasha xajka ha ka aqbalo xujayda gudanaya waajibaadka xajka ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare si kastaba maanta oo maalinta koowaad ee munaasabada Ciidul Adha ayaa si weyn looga dabaaldegaya guud ahaan dalka Soomaaliya iyo qaybo kamid ah caalamka waxaana dadku ay isku hambalyeynayaan munaasabada ciidda boqolaal dadweynaha ayaana iskugu soo baxay qaybo kamid ah guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho kuwaas oo salaada ciidda si wadajir ah ugu oogeen masaajidyada iyo goobaha fagaaraha ay ku yaala gudaha caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho geesta kalena xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed ayaa ka dartay xildhibaanana waxay ku gacan saareen amar ka soo baxay xeer ilaaliyaha maamulkaas xildhibaanada Koonfur Galbeed oo ku dhawaad 6 kamid ah looga yeeray xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku gacan saareen inay tagaan magaalada Baydhabo xildhibaan Cabdalla Cali Cabdi Shiine oo kamid ah xildhibaanada loo yeeray oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xeer ilaaliyaha Koonfur Galbeed uusan wax awood u lahayn inuu yeero xildhibaanada sidoo kale wuxuu sheegay in xeer ilaaliyaha uu iska magacowday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen isla markaasna aan la horkeenin baarlamaanka si ay u ansixiyaan xeer ilaaliyaha Koonfur Galbeed mooshin iyo soo jeedin ka timaada qaar kamid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa xilka looga qaadi karaa sidaasi si lamid ah in markii la magacaabo waxeed in la horkeeno baarlamaanka mana dhicin waana sharci daro xeer ilaaliyaha ayuu yiri xildhibaan Shiine amarka ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha Koonfur Galbeed ee loogu yeeray 60 xildhibaan ee kamid ah baarlamaanka maamulkaas ayaa yimid kadib markii shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ay ku sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin muddo kororsi uu sameysto madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen si kastaba waxaa xusid mudan in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ansixiyay 20 bishii Abriil ee sanadkii 2020 in la isla simo muddo xileedka baarlamaanka iyo madaxtooyada hase yeeshee waxaa jira dood adag oo arrinkaasi ka timid siyaasiyiinta ugu waaweyn Koonfur Galbeed ayaana ku baaqaya in waqtigii loogu talagalay lagu qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa soo badanaya xildhibaanada haatan ka soo horjeeda madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kuwaas oo muujinayaan dareenkooda ku aadan habka wax wada Cabdicasiis Laftagareen inaysan ku qanacsaneen xildhibaano badan ayaana ku sugan gudaha magaalada Muqdisho
oo tabashooyin ka qabaan habka uu wax u wada Cabdicasiis, waxaana la sheegay qaarkood in laga goostay mushaaraadkii ay qaadan jireen. Si kastaba, xaaladda maamulka Koonfur Galbeed ee dhanka siyaasadda ayaa ka sii daraysa xilli waqtiga siyaasiyiinta iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed qaarkood ay ku doodayaan uu gabagabo ku dhow yahay, isla markaasna ay sheegeen inay ka dhursugayaan in doorasho lagu qabto xilligaas, haddii kale ay iyagu si gooniya u qabsan doonaan doorashooyin. sidoo kale waxaa isu soo taraya dadka ku dhawaaqaya inay yihiin musharaxiin u taagan xilka maamulka Koonfur Galbeed, taa oo laga yaabo inay cadaadiska ku kordhiso Cabdicasiis Laftagareen oo doonayo in waqti dheer uu sii joogo kursiga talada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. وهاجاجي داود يالي مكان وحنو ايجينا الشباب سي كل ايه uga jawaabeen hadalka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay dhawaan in dowladdiisu ay ka go'an tahay in Soomaaliya laga saaro kooxda al-shabaab, wuxuuna ballan qaaday inay la gali doonaan dagaal dhinac walba oo aan la isku tureynin. madaxweynaha oo hadal u jeedinaya ciidamo tababar uga socday dalka Turkiga ayaa soo hadal qaaday in muddo 15 sano oo al-shabaab ay jirto lala galay dagaal dhinacyo kala duwan leh. siyaasado lagu wajahay kooxdan oo aan shaqeynin wuxuu ku sheegay in awoodooda la dhimo, wuxuuna soo hadal qaaday hadaleynta dadka ee dhanka diinta inay kala wareegi doonaan al-shabaab oo dadka ay tusi doonaan inay ka been sheegayaan diinta islaamka. hase yeeshee wuxuu soo hadal qaaday arrin ka careysiisay kooxda al-shabaab oo ay si gaar ah jawaab uga bixiyeen, taasoo ah dagaalka dhana dhaqaalaha kooxdaas. tubooyinka dhaqaalaha inaan ka soo xirno weeye ayuu ku celceliyay madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuuna raaciyay farsamada iyo istiraatiijiyada loo marayo way noo yaalaan waanu ku dhaqaaqeynaa. madaxweynaha ayaana xusay inay doonayaan inay gacanta ku dhigaan dadka dhaqaalo aruurinta kala shaqeeya al-shabaab ee ka howlgala dekedaha iyo kuwa canshuur qaadista u qaabilsan kooxdaasi. hadda waxay sameeyaan beesada ay Soomaaliya ka aruuriyaan ayay dibadda ku diraan, kan Mozambique ka dagaalamaya iyo kan Nigeria ka dagaalamaya. taburucaada Soomaaliya laga aruuriyo qaarkeed ayaa loo geeyaa oo gaara ayuuna yiri waqtigaas madaxweyne Xasan. wuxuuna sheegay in xitaa al-Qaacida oo markii hore taageero dhaqaale u fidin jirtay al-shabaab hadda lacag looga qaado Soomaaliya. haddaba al-shabaab ayaa soo saartay war-saxaafadeed ee uga jawaabayso eedeynta dhaqaale ee madaxweynaha, gaar ahaan inay lacag u dirto kooxo ka dagaalama dalalka Nigeria iyo Mozambique. dhigaalkan oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ayay kooxdu ku tilmaamtay eedeynta madaxweynaha inay tahay wax lagu qoslo, waxayna ku eedeysay in Xasan Sheekh uu ku dhaqmayo siyaasad ka maran xaqiiqda iyo faafinta warar been abuura. al-shabaab ayaana sidoo kale ku eedeysay madaxweynaha inuu warkan ku aqrinayo heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda abaarta ee dalka, iyadoo ku dhaliishay inuu ku guuldareystay wax ka qabashada malaayiin Soomaali ah oo ay saameeyeen abaaraha. waxay ganacsatadu u jeediyeen inay ka digtoonaadaan qorshayaasha ee ku tilmaamtay in lagu doonayo in marmarsiyo loogu sameysto dhaqaalahooda. haddaba ilaha dhaqaalaha kooxda al-shabaab markaanu eegno khudbadda madaxweynaha waxaa ku jirtay eedeemo, dhaliilo iyo arrimo kale oo lid ku ah al-shabaab. haddaba waxaa la isweydiin karaa maxay al-shabaab uga carootay oo ay uga jawaabtay arrinta dhaqaalaha oo keliya. warbixin ay sanadkii 2018 soo saartay hay-adda Hiraal ayaa qiyaastay in al-shabaab ee sanad kasta soo gasho lacag dhan $27 milyan oo dollar. waxaa la tuunsan yahay in lacagtaas ay al-shabaab ka qaado gawaarida ka dhex shaqeeyaan gobolada dalka, ganacsiyada, beeraha, shirkadaha iyo hay-adaha ka howlgala dalka, taas oo ay usii dheer tahay sekada iyo tabarucaada jihaadka waxay ugu yeeraan. nidaamka ay wax ku canshuuraan ayaa la sheegay inuu sii xoogeysanayay sanadihii ugu dambeeyay. xog hore oo qormada warbixintaas uu sanadkii 2019 soo saaray guddiga khubarada qaramada midoobay oo xil saaran cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa qof Muqdisho joogay oo lagu wareystay wuxuu ku sheegay in al-shabaab ay ku dhaxmilantay hay'adaha ka howlgala dekada Muqdisho iyo wakiilada shirkadaha maraakiibta ay u raran yihiin ee ka howlgala magaalada. taas waxaa ka dhashay in al-shabaab ay hesho macluumaadka alaabta, qiimaha iyo qofka iskaleba. waxaana la sheegay intaasi ay keentay in al-shabaab ay u fududaato helitaanka canshuure ay ka qaadaan dekada magaalada Muqdisho iyo weliba ganacsiyada kale ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. dhaqaalaha ugu badan ayaana la sheegay in kooxdu ay arrimahaasi ka sameyso, waxayna dadku qaar tilmaamayaan
haddii madaxweyne xasan sheekh uu ka dhabeeyo hadalkiisa islamarkaasna uu dhankaas kasoo bilaabo howlgalka lagu ciribtirayo dhaqaalaha kooxda al-shabaab inay guul weyn ka gaari karto dowladda federaalk Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal nageynta warkii waad kala socoteen Hubal News fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada ila wararka joogtada ee aanu janaalkan ku baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalka sii share gareeya laagtiinan waa inoo muhiim waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka Hubal News.